wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland, wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda Ali Xaamud Jibriil, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga, xogayaha golaha guurtida Somaliland iyo salaadiin ayaa maanta booqday deegaanka Xeego ee ka tirsan degmada Baki ee gobolka Awdal. Deegaankaasi oo laga hirgeliyay waddo laami ah oo isku xidhaysa degmooyinka Boorama iyo Baki ayaa waxay halkaasi ku dhagax dhigeen dugsi sare oo uu yeelanayo deegaanka Xeego. Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal, wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland, Imaam Xaaji Axmed Miisaan Aare, gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax, wasiirka wasaaradda waxbarashada Farax Cilmi Geedoole ayaa dhammaantood waxay halkaasi maanta ka soo jeediyeen guud ahaanba ayna dadku ay gamcaha isku qabsadaan. waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. mudane wasiir ama wasiiro gudoomiye halkan waxaan wadadan soo bilownay 2007 bishii 12 December ayaanu ka soo bilownay halka imkay naga dambaysa ee buurta hoosteeda injineerahan noo qorsheeyay oo wado hore mari jirta xagga galbeedka mari jirta baydaan suurtagal maaha mana suurtagalayso runtii wax la yaab laba ahayd wadadaasoo sidii Ilaahay u sameeyay ahayd oo weligeed aan garanaysaa wax laga qabanin inaan maanta halka aan soo bilowno. mudane wasiir markii hore waxaan ku bilaabnay community-ga deegaankani baan ku bilownay oo wadadan soo bilaabay waxa weeyaan deeqayla waa cidkeena runtii wuxuu waxay ahayd oo cid u yeedhiya qayl ahayd waxa gashay ma garanaysaa boqolkiiba 25 ayay community-gu lahaa 75 kale runtii xukuumadda ayaa lahayd iyadoo halkaan marayso buurtan dhaadiciga sii marayno calaamaduna inta badan calaamaduna ay runtii timid maanta xukuumadda ee maanta joogta oo hogaamin mudane Axmed Siiraan hogaaminayo inaguna aad wasiirada aad ka tiim baa timiday. alxamdulillah wata maanta laamay bay ka dhigtay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo Ilaahay baa aanu mahadnaqayaa xukuumadda maanta joogta mudane madaxweyne Axmed Siiraan hogaaminayo. alxamdulillah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah Muhammad. waxaan runtii u mahadnaqayaa hadday tahay wasiirada iyo hadday tahay odayaashaba dhammaan bulshada nagala soo qayb gashay. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadkii ka qayb qaatay ee bulshada ahaa ee deegaanka ahaa ee ka qayb qaatay sidii uu sheegay suldaanku 75% xukuumad ahaan naga bixinay lacagtii ku baxday wadada tan 25% community-ga bixiyay 800 saacadood horaan bixinay. suldaan inta kale ee suurtagal ee imka taagan waa bixinaynaa insha Allah taala waa kala qayb galeynaa kala shaqeynayna sallam waxaan maanta waxay tahay wadadaasi dadkii meesha deganaa sida suldaanku carabka ku dhiftay waxay tahay dad xidhnaay oo laga sii daayay bay tahay weynageed waad soo aragteen caruur baa halkani naagtu kulka halka ku foolata Xeego baabuur lama haynin naag foolanaysa awr lama soo saaraynin halkaas caruurtii iyo dumarkii ku dhamaanayaan midkii ka baxay maanta magacay sheegayeen mid noolaaday ayaan la yidhi awr lagu soo reey ku kalena wax magac kale u bixiyeen kii imika intii wadada la sameeyeen waxa la yidhi fure ninkii meesha wadada furo kale iyo ninkii laga dhigay. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha dhaqanka suldaanka iyo imaamka oo aad uga mahadnaqay waxtarkay wadadani leedahay iyo xukuumadduba gacantay runtii ka geysatay. maanta halka wasiirro badan baa martiinoo ah waxaan ku soo dhaweynayaa hadal badan u kaalmoon maayo xilli badan baa hawl badan baa inoo taala wasiirka. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. odayaasha dhaqanka suldaanka iyo imaam Axmed iyo odayaasha kale sida Mahdi Tabshid Ndabraale iyo Abdi Gufi Abdi Hakim Abdullah Ahmed Good ama iyo inta kale ka soo qayb gashay waxa weeyaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo runtii arrintan noo idmaday sidoo wasiir xisaaw ka mas'uul yahay wadooyinka wadanka. runtiina maanta halka ugu muhiimsan ee ummadda Somaliland wax qabadka ugu badan ay ka jiraan waa wadooyinka
tanna waxay ka mid tahay taasay ka mid tahay waddooyinkaasay ka mid tahay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in wasiir Xirsi halkan uu joogo waxqabadkii xukuumadda naaw halkaa ka muuqdo oo runtii wax weyna waxaad moodaa inay shariikada ajnabi sameeyeen waddadan dhererkeedu waxa weeyaan 58 kilomitir marka laga bilaabo Boorama waxayna waddadani ku darsamaysaa waddada Djibouti ka timaado waxa iskaga biirayaan weerar bay iskaga biirayaan Axmed Diriya Ciltire Raya TV magaalada Boorama